waxaa maanta lagu dhawaaqay 95 xildhibaan ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib toddobaadyo guddiga farsamada madax banaan ee soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed ay wadeen xulista oo aakhirkii guddiga ay ku dhawaaqeen. Maxamed Keero waa gudoomiyaha guddiga farsamada madax banaan ee soo xulista xubnaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed waxa uu ku dhawaaqayaa liiska xubnaha ay soo xuleen golaha dhaqanka Koonfur Galbeed. Nambarka koowaad Cusmaan Cabdi Muuse oo silcisa Ali Isaaq Cumar Geeladle Maxamed Nuur Maxamed Geeladle Aamine Isaaq Maxamed Geeladle Cabdisalaam Cabdullaahi Baasay Cormare Ibrahim Macalin Ali Leysaan Maxamed Ibrahim Aadan Leysaan Maxamed Nuur Isaaq Luway Xasan Ibrahim Xasan Luway Dr. Cabdirashiid Maxamed Nuur Jilay Jiroon Xasan Aadan Ali Jiroon Ismaaciil Axmed Cabdullaahi Eemid Cabdullaahi Isxaaq Macalin Wanjeel Yunis Cabdiraxmaan Maxamed Leysaan Barre Aadan Cabdi Biimaal Gaadsan Shukri Faarax Cali Luway Cabdifataax Maxamed Cali Wacdaan Muxudiin Xaaji Cadow Eyle Aadan Maxamed Cusmaan Waaweyn Yuusuf Cabdinuur Suuri Biimaal Daa'uud Abikar Nuur Cabdullaahi Biimaal Sacad Mustaf Axmed Iidow Biimaal Daa'uud Awees Xuseen Mucallim Hintire Madkeer Mucallim Aadan Qoomaal Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf Biimaal Ismiin Cabdifataax Cali Axmed Biimaal Ismiin Binti Ibrahim Cali Biimaal Dabrube Iimaan Cali Cabdi Jilible Aadan Cali Sheekh Jilible Mukhtaar Maxamed Aadan Ajuuraan Irshaad Maxamed Aadan Hadame Maxamuud Cabdi Cali Hadame Mukhtaar Maxamuud Maxamed Hadame Cusmaan Buule Macalin Hadame Xasan Maxamed Cabdikariin Kasaargude Aadan Macalin Mustaf Weelmuge Maxamed Cali Xasan Elay Bishaaro Cali Nuur Elay Cabduqaadir Xasan Cabdiraxmaan Jookar Elay Shamso Maxamed Yarow Reer Baraawe Maxamed Usmaan Xaaji Abdow Jiido Ibrahim Cabdulle Cabdi Jiido Ibrahim Cabdi Cabdiraxmaan Jiido Axmed Madoobe Nuunow Dabare Aamina Cabdixafiid Ibrahim Dabare Cusmaan Nuur Aadan Dabare Cabdimaalik Ibrahim Cabdulle Jejeele Cabdalla Cali Cabdi Helede Cabdiqaadir Ibrahim Cabdullaahi Iroole Maxamed Xasan Maxamed. Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tiradoodu ay tahay 95 mudane 14 ka mid ah waa dumar waxaana lagu saleeyay dastuurka Koonfur Galbeed iyadoona baarlamaankii koowaad ee kan ka horeeyay ay tiradiisu ahayd 149 xubnood oo khilaafsanaa dastuurka balse haatan taasi meesha way ka baxday oo waxa iswaafaqay dastuurka Koonfur Galbeed iyo tirada xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Shukri Ismaaciil Axmed Somali Cable magaalada Baydhabo.